الحمد لله وكفاه وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalahayga qaaliga ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan idin salaamay, qaasatan kuwa kasoo hayaamay dalkii ama kasoo barakacay xilliyada dhibaatada nagu habsatay, dowladeeni burburtay, dalkeeni baaba'ay, dadnimadeeni ay luntay. waxaan weynay bayskii nolosha, bayskana qof walbaba waxaa la yidhi inaan dal aan dalkaaga ahayn dareen ku joog waaye. dalka waa kasoo tagnay, waxaana qaabila dalalka kale ummad teeni ka fiicana u nimid. kuween waabana qalqalay wayna dilayeen, laakiin kuwo cabsi la'aan iyo nabad aan kula noolnahay. in badanoo waxay haysteen noo horeyna soo dhaweeyay. aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda UK in badan oo nolosheena ka mid ah setal garaysay, nagu soo dhaweysay guryahoodii, noloshooda qayb naga siisay, xoolana siiyay, waxaan ku noolaano, noo ogolaada inaan wadankooda ka shaqaysano. laakiin waxaan nahay cultural diversity wax la dhaho, oo dhaqankeennii markii aan kasoo barakacnay mid kale oo nimid. ummad walba way la soo gudboonaataa dhibaatadaas, laakiin dhibaatadii jidad looga baxo ayaa jirto. anaa hadda u yaraa u malaynaa 18 sano meeshaan joogo. jid kasta oo aad raadisana qofka bini aadamka ah oo alla khalqay waa uu helayaa, laakiin annaga hadda ummadda Soomaaliyeed nahay ma raadino furaha noo furay iridda aan rabno inaan galno. say ila tahay waxaan raadinaa heblaayo oo heblaayo ka daba maqan iyo hebel oo heblaayo ka daba maqan iyo dad isku daba maqan oo say xagga uga soo qaxeen. dhibaatada xagga nagula soo habsatay weli waana haysaa, mana nadaynayso ilaa aan kasoo noqono. waxaa u nimid dad kuweeni ka bedelan, ka akhlaaqsan, diintooda ayaga iyo rabbigooday ka dhexaysaa. lakum diinukum waliya diinayna dheheen, diinteena naguma haystaan, annagana tooda kuma haysano. laakiin waxay leeyihiin dhaqan iyo asluub tii islaamku jideeyay. midda ugu horeysa oo aan rabo maanta inaan bogaadiyo waxay tahay in aan bal helno jid aan dadkan kula communicate gareyno. communication is the base of the life. waxa waaye waa waxa nolosha aas-aaska u ah, waa xiriirka. xiriirkaas furihiisu muxuu yahay marka dad yahow walaalahay? xiriirka furihiisu waa inaad barataa luqadda wadanka aad ku nooshahay, oo nabiguna calayhi salaatu wassalaam wuxuu noo sheegay man tacallama biluqati qawmin ta'amana bimakrim. meel ali meeshaad joogtaan walaalaha Soomaaliyeed, khaasatan hooyooyinka dhibaatada ku habsatayo, waxaan idinku encourage garaynaa inaad luqadda wadanka aad joogtaan aad barataan. wadanka luqadiisa haddaa barato waxaa baranaya nidaamka dadku ay u dhaqmaan. waxaa jira nidaamyo badan oo hadda in badan aan aqoonin, laakiin maanta aan aqaano, aan idinla share garayn doona haddii Ilaahay yiraahdo. oo communications habka oo xiriirka qofka dhaqankeeni iyo kan maxaa u dhaxeeya. in badan oo jawaabo ayaan taasna ka bixin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. in badan ayaan ku mashquulsanaa intercultural communication needska iyo cultural diversity-gana helay. ilmaheena in badan oo dhibaato ah ayay ka safar garaynayaan. dhibaatooyinkaasna waxaa keenay waxaan soo dhexgalnay bulsho naga dhaqan duwan, waxaan soo dhexgalnay bulsho naga horumarsan, waxaan soo dhexgalnay dad wada talented ah, aabbe iyo hooyo is haysto, waxaan soo dhexgalnay awoowo iyo ayeeyo iyo isir iyo abti iyo adeer iyo ilmo in badan haysto dad maasha Allah. laakiin qof walba wadankiisa joogo intaas wuu haystaa. annagana waxaa nagu soo dhacay dhibaatada nagu habsatay oo maanta hooyo kasta oo Soomaaliyeed ay ka ooyeyso waxay tahay meesha aan kasoo tagnay iyo meesha aan joogno. teeda labaad maamadii oo Allah u naxariistay ayaan dhimata Xaliimo Soofe